السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا وناكسن أخيارتا إنو جعلنا هيو ميلو بادوتان كسو دوادا شاكدي عرد قيبتي سدحاد وآن دين سوقود بنو qaybtii labaad ee sheekadan ayaa inoo joogtay iyadoo la iga soo kaxeeyay anigoo dul saaran ganjeelkii guriga laakiin dadku ay sheegeen inaan jiifay dhulka oo aan weliba rafanayay. haddaba ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee sheekadii curad. sheekadan waxaa qalinka u qaatay oo qoray Uriye Maahir Jaamacadan, waxayna ku bilaabanaysaa qaybta saddexaad sida tan. waxay hadba xaalad aanan anigu arag ay dadku ka sheekeeyaan anna la yaabiyo fajac ka sii qaado sida ay iga warbixiyeen ayaan ugu dambeyn la su'aalay maxaad la oraday. waxaan eegay wajiga qof waliba oo idul taagan. intaan jawaabin waxaan qiimeeyay sida ay u rumaysan karayaan haddaan xaqiiqda aan u orday aan u sheego. haddana waxaan ka fursan waayay inaan runta u sheego dadka intaa leeg ee jawaabta iga sugaya. waxaan u sheegay inaan gabar ceersanayay, iyagoon hadalka iga wada sugin ayay dhammaantoodba qosol la daateen. maamada oo aad uga xanaaqday qosolkooda ayaa tiri aamusa ha dhameeyo wiilka. gabadhu maxay ahayd ayaa layga fadhiyaa. waxaan idhi waa 12 sano jir, ma aqaano magaceeda. haddana mar kale ayaa qosol loo daatay. aad baan u carooday, laakiin maamada ayaa i su'aashay magaceed gabadha. waa tuma. waxaan idhi ma aqaano magaceeda iyo qofka ay tahay, laakiin si aan ogaado ayaan u ceersanayay. dadkii wajiyadooda qosolkii wuu ka guuray. markiiba waxaan soo fuulay wajiyadooda la yaab. waxaa ku adkaatay in ay fahmaan hadalkayga oo gabadhu miyaadan aqoonba u lahayn ayay maamada i su'aashay. waxaan idhi maya, laakiin maxaad qofka ay tahay aad u raadinaysaa oo aad u daba orday? waa su'aasha ay qasab tahay inaan ugu jawaabo, haddana ay adag tahay in dadku ay la wada fahmaan. waxaan ka sheekeeyay in gabadhu 12 jirkaahi uu siday oday da' oo ciraystay oo saqdi dhexe ee xalay anigoo hurdo igu soo garaacay guriga, haddana aan ka furay oo iyagoon isku kay sheegin ay haddana iga tageen. hal mar ayaa shaydaanka la iska wada naaray. dadkii ugu qosolka waaweynaa badi dib ayay u gurteen. waxaa dhammaaday su'aalihii marba qof igu soo tuurayay. talo ehelkii ayay isugu laabatay. markiiba waxaa la amray in la geeyo qolkayga, dushana la iga soo xidho. waxaa la doonay wadaado igu aqriya 114 quraanka kariimka. waxaana timid habar caanka ahayd xaafadda oo faalisa. waxay tiri nin jamaahiir baa dul saaran ee inta badda la geeyo biyaha dhanaan ha lagu waraabiyo ilaa uu ka soo matago. dhir aan aadmigu cuni karin ha lagu qasbo si ay u hadlaan. waxa intaasiba ka sii daran markii koronto aan cabir lahayn la igu qabtay. dhagahana mikrofoono waaweyn la iiga dilaaciyay oo aan noqday qof nolol adduunka quustay. wadan aan lahayn dhakhtar dhimirka oo kala saari kara caafimaad qabka maskaxda aadmiga ayaa mar waliba oo aan iraahdo waan caafimaad qabaa waxay dadku ilaahayeen maxaad ku cadeynaysaa caafimaadkaaga. haddaba sidee asagu ku ogaaday ama ay ku ogaadeen caafimaad daradeeda? ileen ma ahan mana aysan igeenin dhaqtare. hase yeeshee waxaan anigu ku dadaalay inaan waayin caafimaadkayga maskaxda, maadaama jismigaygii kale si jaahilnimo ah aanoo arkaya loo jarjaray. 4 bilood nolosheeda ma aqaan sida ay ahayd, xitaa kama wada sheekayn karo dhacdooyinkii soo wada maray oo dhan. laakiin waxaan xusuustaa in xaafadeedii oo dhan la iga magac bixiyay yarkii waalnaa ee dariska. qof waliba inuu iga cabsado ama uu iga soo qaado sida ruux horor ah ayaa xoogaysatay. waxaan marnaba agteyda soo istaagin gabadhii aan ugu jeclaa dunida oo markaana guurkeenu soo dhawaa. mar waan ilmeeyaa keligee, marna waxaan iraahdaa imisa ayaa sidan oo kale looga xoogay caafimaadkooda. maalinkii ugu dambeysay oo la ii dhammaynayo quraankii muddada ii soo socday oo haddana xilligaasi dusheeda laga hadleen la igu celcelinayo korontadii iyo weliba ciinkii dhanaanaa ayaan fikiray. waxaan qaatay go'aana in la iga dul hadlo, laakiin weligay xitaa ma arag qof lagu dul hadlayo. waxaan aad uga cabsanayaa inaan wax qaldo, laakiin si walba intaas ayaa xal igu dhow.
quraankii wadaadada oo socda ayaan bilaabay inaan gariiro ama aan jireeyo aniga oo jilaya hal mar baa la igu soo yaacay oo la iga qabtay wadaadadiina quraankii ayay kor u sii qaadeen oo aayad waliba 3 jeer bay ku celinayeen waxa la bilaabay in la dhaho hadla yaa tihiin maxaad maskiinkan ka rabtaan jidka qaar baa ay xanuunaya oo ay si daran u hayaan haddana qosol baan isku celinaya oo sida ay dadku isaga daciif yihiin baan la yaabanaa marka xanuunka iyo su'aashuba ay iga bateen ayaan iri adeerayaal waa aniga na fariisiya markaas ayuu wadaadka yiri fariisiya oo daaya farahana ka xidha kadib baa la ii weydiiyay yaana la hadlaya haddaan sheego magaca qof caadi ah waxaan ka yaabay ama aan ka cabsaday in wadaad maskiin ah oo meelaha ka agdhow uu magaciisu noqdo haddana ma aqaano magacyada ay la baxaan dadka ku dul hadla sidaa daraadeed waxa uu mar afkayga ka soo baxday magaca adeeryaal waa Sheekh Curad oo soo booqday wiilkiina markaasi waxa niyadeeda ku taagnaa odaygii dhibtani baday waayahay Sheekh Curad maxaad ka rabtaa maskiinkan sida aan ugu jawaabo su'aashan ayay ku xiran tahay badbaadadeeda sidaa daraadeed waan u yara fikiray ugu dambeyn waxaan iri adeeryaal Sheekh Curad uu ku soo qaldamay maskiinkan haddana isagoo tagaya idinka u yeeray ee ebed uu naga fasaxan yahay maskiinkan Sheekh Curad haddii aan ahayna markaan hadda ka baxo waan ka guuriyaa aagan iyo waliba qaaradan oo dhan oo waxaan degayaa jasiirada bariga fog ee Australia idinkana nasiya waa daariseen wiilkan maskiinka intaas markaan iri dadkii way wada farxeen kadib bax ayaa isxigay dadkeegii oo u haysta inaan hadda un caadi ahay ayaa iyagoo faraxsan i keenay guriga isla habeenkii u horeysay 4 bilood kadib aan ku xisaabtamayo hurdo taam ah laakiin abaaro 1 iyo 30 daqiiqo am saq dhexe ayaa illinkeygii haddana garac la mid ah kii hore oo kale aan ka maqlay waan naxadin daran waliba jiifkii waan ka soo booday istaag iyo fadhi midna kuma sugin wali irida waa la garaacaya waxaan si tartiib ah ugu dhaqaaqay irida si aan u fahmo qofka uu yahay kan garaacaya la soco qaybtii afraad ee sheekadii Curad oo uu qoray wariye Maahir Jaamacadan sheekadan waxa laga qoray mid kamid ah bulshada Soomaaliyeed manahan sheekadan mid qusaysa qoraha sheekadan inta aynu qaybta afraad aynu ku kulmi doono daawadayaal waxaan idinkaga tageynaa sida ayuu nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصي شيء هدي أتكهشي وحسبسكرايب لايك يشهر بعد سيسا هورفدي فيلمز أو مر ولبا أتاجن إنه دين سوق بيو شيء كونك وحيسها بدن بلشة كدعاء